ciraaq sanadooyinkan iyo maalmahan maxaa ka dhacaya? waxa ka dhacaya waa mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha. كان علامة هدات أركتت الباب كتوبة وحرمة علاموينك وقوبين ويوم القيامة كو أصحابي بحيتانك دجالك أصحابي دجالك حواي خف البون هل كان أقو خورن كافر وقال إله شاقنا هابي نمبر لما سيدنا عيسى عليه السلام عركك صدق دونا خنزيرك دلا استلابك جبنا حاكم عادل أدونك ونخدونا أصحابي سد حيوانا طلقك صوبحا ددك لهدلايو إلهي قرآن كيسا كشاقبه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أصحابي نمبر أفر بحيتانك يأجوج يمأجوج يأجوج يمأجوج خوم وين واي wax walba waa cunayaan حتى dadka ilaahay quraankiisa ku sheegay حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أصحابي شناد عركك إمادونا إلهي قرآنكيس حكيري فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم نمبر لح أرحا إن أعكلك صوبح دونا حابي نمبر تضوى إيسيديد إيساقال عركا وحلق صوتورا إلى طولك كان كوات إنع مغربتا يوروبتا إيمالهاس كان لمادا وحوكو صدعا إنع مشرقة شينا إي هندية إي خيبتاس كان سدحادنا وحوكو صدعا جزيرة العرب سعودية أصحابي نمبر 8 وحواي دب وين يمن كسو شدما دادك وحو وذي أرض المحشر وحلقها dhulka يوم القيامة لسكو إمادونو ميشاس آجيه مركا أصحابي هلا ددالو توقضان والا سعودا سيدان يادا كهر على موين كنا يرير بضي والا أركي إلهي خاتمة دانو وناجيو جنة الفردوس الله نوكسو ولا لا كالي وذاك السلام عليكم. ciraaq sanadooyinkan iyo maalmahan maxaa ka dhacaya? waxa ka dhacaya waa mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha. webiga la yiraahdo furaat ayaa biyihiisu gurayaan oo qalalaya. dhawaanna waxa soo ifbaxday caasimad dhan wata iga koraysa caasimad dhan oo ku hoos qarsoonayd webiga la yiraahdo nahru dajla oo isagana ku yaala wadanka iyo ciraaq. nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri 1443 sano ka hor la taqumu saaca qiyaamuhu ma dhacayo ilaa webiga furaat uu biyihiisu guro una ka soo dhexbaxo buur dahaba. qiyaamihii albaabka ayuu taagan yahay. maanta comment-ka aan ka wada dhigno subhanallah kaliya soo qor. sacuudiga maalmahan maxaa ka dhacaya? daad fara badan, roobab xoogan. meesha aad aragtid ma aha Yurub wala Amerika. meesha barafka uu ka da'aya waa sacuudiga waxa ka dhacaya waa mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha. nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri 1443 sano ka hor la taqumu saaca qiyaamuhu ma dhacayo ilaa dhulka carbeed isku bedelo dhulal leh webiyo dhirar fara badan iyo doogba. qiyaamihii albaabka ayuu taagan yahay. maanta comment-ka halaga wada dhigo allah ayuuna badbaadi. salaam. أصحابي يوروبتا كلها كان كجيرو دليل وإن يوم القيامة سودوية لأنه نبيان سوبنا صلى الله عليه وسلم وحونا داهي لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يوم القيامة لما قارا أصوت لك عربتا ووي إيو عوص عغار نخنن سبحان الله وانو أجيدنا طلق عرب كجوبيجي سيدو اسكو بدلي هذا ربضنا كدقوها يا يوروبتنا كلها كجيرو ولي جيس ما كدعين والله دبا سيدو لذويو أصحابي دمان إلهها ونخنو توقضان ورا الصعدة والله. أصحابي أنا قوى إدخانين كلها كان وحمو أركب وأسكو لقاء راحولي مات يوم القيامة. 1 سقوط 7 من أمراء الدول. 2 ظهور الإمام المهدي. 3 ظهور الدجال. 4 نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على الأرض. 5 ظهور يأجوج ومأجوج. 6 شروق الشمس من مغربها. 7 أبواب التوبة ستغلق. 8 ستظهر دابة الأرض لتضع علامة على المسلمين. 9 سيعم الضباب على الأرض لمدة 40 يوم وسيقتل كل المؤمنون حتى لا يشهدوا بقية العلامات. 10 نار عظيمة ستسبب الدمار.
11 دمار الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من نقل هذا النبأ عني سأجعل له يوم القيامة مكانا بالجنة. bilowgii mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha ayaa ka soo ifbaxday webiga Furaad. dadka Soomaaliyeed intooda aan ka warqabin ayaanan jeclaysanay inaan la wadaagno. waxaan idin soo bandhigaynaa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha oo ka soo muuqatay dalka Ciraaq. inta badan dadka muslimiintuna kama warqabaan. marka hore se like oo la wadaaga asxaabtaada una sii gudbi inta ugu badan ee aad u gudbin karto. waxaynu hore u maqalnay in markaa biyuhu ay guraan webiga Furaad ay ka soo muuqan doonto buur dahaba ayna ka mid tahay mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha kuwooda ugu shidan. waxaana dadku marka ay maqlaan arrinkan ay ku soo qabaami doonaan webiga Furaad waxayna isku dilayaan dahabka. waxaana nebigu sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in lagu dili doono 99% dadka u soo qaraab taga buurtan dahabka sida ku xusan riwaayado badan. waxaana la sheegay in webiga Furaad hoostiisa ay ku duugan tahay buur dahaba oo marka ay soo muuqato ay ka mid tahay calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha lagu garto. waxaana hadda la sheegay in wax u eg dhagax jajaba oo fara badan oo dahab ay ka soo burqamayaan webiga marka ay guro qaybo ka mid ah webiga Furaad. waxaana loo maleynayaa in dahabkani ka soo maaxayo buurta dahabka ay ku taal webiga Furaad hoostiisa. Abi Hurayra ayaa horey inoogu soo wariyay nebiga sallallahu alayhi wasallam in nebigu yiri saacada qiyaamuhu ma dhacayso ilaa la helo webiga Furaad buur dahaba dadkuna isku dilaan. waxaana dhimanaya 99%. waxaana hadda la warinaya in webiga Furaad ay biyihiisu gureen. Amankan calaamad haddaad aragtid albaabka toobada waa xirma. calaamooyinka ugu weyn waa yawmal qiyaama. kuw asxaabay bixitaanka dajjaalka. asxaabay dajjaalka waxa waaye qof ilbuun ah halkan ugu qoran kaafir waa gaal ilaaha sheegana. habeen number 2 sayyidina Ciisa alayhi salaam cirka ka soo dagadoona khansiirka dila istilaabka jibina xaakim caadil ah adduunkana u noqdoona. asxaabay saddex xayawaana dhulka ka soo baxa dadka la hadlaayo. ilaahay quraankiisa ku sheegay wa idha waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi تكلمهم. أصحابي نمبر 4 بحيتانك يأجوج يمأجوج. يأجوج يمأجوج قوم وين واي wax walba waa cunayaan xataa dadka. ilaahay quraankiisa ku sheegay be حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أصحابي شنات عركك إمادونا. إلهي قرآنك سحكيري فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. نمبر لح أرحى إن أعكلك صبح دونا. حابي نمبر تضوى إيسيديد إيساقال عركا وحلق صوتورا إلى طولك كان كوات إنع مغربتا يوروبتا إيميلهاس كلمادنا وحوكو صدعا إنع مشرقة شينا إي هندية إي خيبتاس كان سدحادنا وحوكو صدعا جزيرة العرب سعودية. أصحابي نمبر 8 وحواي دب وين يمن كسو شدما دادك وحو وذي أرض المحشر. أرض المحشر وحلقها dhulka يوم القيامة لسكو إمادونو ميشاس آجيه. مركا أصحابي هلا دادالو توقضان والا سعودا سيداني هادا كهر على موين كنا يرير بضي والا أركي. إلهي خاتمة دانو وناجيو جنة الفردوس الله نوكسو ولا لا كالي لوذاك. سلام عليكم.